بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها ملك استوى الجوكتان كسو دواذا وبرنامج كيني أنه برتين إيمالك جمعها أما هبينك جمعها وحنا لكم كسو دوينا يا ولاشين آمنة اسبدل دون channel أو آد يادو تقانا آمنة عبد القادر ما شاء الله أبوية أو جوكت فيلن أو واحد بدن لقى فائدة أو عاون أيدي ودنا برنامج أنا برتين ستوف لا وحكوا له هالكن دين عيق جوج ما شاء الله تبارك الله مع سعيدة ونرجع الشانل أيضاً آد مارك دنيسة وحيسيسة وعن ولي بحنا مقعة the queen of self love وآد مارك طبقا نصيد حق الشيء أنا you can see the smile حتى كسو بحاي وايو and ما دام يعني طبقا أن عرقني سيدا أن أربتيني بحد وياهي وحان إذين قلنا عاوي برنامج كمكس إذين دادين دونه مقعة برنامج كعاوي وياهي جعيل كنفتا قفا ابن آذن كنفتي سوء جعيل ياهي كبا سوقات ولبس كيسو قرحون ياهي بنانكو وبح علميس إلى غاشت باول كيسو وطو يعني حرسر وياهي مركو دادك كدح موقدان كليس مركو جوغو وبالتالي ياهي بانيك نفتي دوان جعلا لكن دقيقة كوسقوبان سؤاشاس معك كدي لذن قبلهم هذا أنا كهر مرة أهانتي وحدي لها وحيابها وكوبا وقف كدقيسة كوسقينا أما مقلك ومقلا إيتها وقدرن بحاس وقدرن وحياتها هاي for example حنتو كلا taasoo ogaha inta badan boqolkiiba 90 dhihi kara inay u badan yihiin inay dhageystaan dumarka ay sheegaan ay soo wariyaan ay ku raaxaystaan qof kale dhibaato ku dhacday ama qof kale noloshiisa xanta lagu sheega waxa qof kale noloshiisa oo mar walba step by step oo la socotid marka run ahaantii ma la dhihi karo qofkaas naftiisa uu jecel yahay boqolkiiba boqol maadaama qof kale noloshiisa uu ku dhex nool yahay uu interest gelinayo qof kale uu waqti gelinayo waqtigaas qof kale maanta dhan diracuu xirnaa iyo arooska sidoo u dhacay iyo xumaantiisa iyo dhibka heesta iyo ilmihii oo xumaadeen iyo whatever ee tahay xantaas aad ku dhageysanaysid waxa ogaataa naftaada hadaa gelisid inay kaaga qiimo badanta adduun iyo aakhirana aad wax ku faa'iideysid maxay idin la tahay idinka for example saciida maxaa dhihi lahaa macal saciida adigana dhankaaga insha Allah كورن دتكاس ودغودي اسكا وسقay ayuu jirkoodii nadiifiyay ka waran exactly what sheegtay way salaam gabdho ma sha Allah dhamaan daawadayaashan waa salaamaya dadkaas oo kale waxa uu arkaa dad runtii naftoodii ka mashquulay iyo dantooda oo ku mashquulay wax aan wax u tareenin oo waxba u soo kordhinaynin markii ay macnaha xan iyo hadal la soo qaaday isku geeyaan ay haddana isku sii diraan ama ay qof kale si u taalay markay soo arkeen ay wax ka sheegaan dantooda ay ka mashquuleen mid kale ay ku mashquuleen waxna uma tarayso ayaga naftoodina hoos u sii dhigaysaa oo maxay self love kaas maxay ahayd aad ugu yareeyay dadkaas kale subhanallah aad baa maasantiin anigoo aan dib ugu noqon doono yani waxa ka dhawaajisan labadiina fikrada ka dhawaajisan aan ku hormari doonaa amina waxaad ka dhawaajisay ka waran qof kale ayaa taariikhdiisii baranaysaa wixii qaladkii ka dhacay wixii uu saxay adiguna taadii waxaad uga soo tagtay meel cidlaata taa marka waxay u muuqataa jacayl ma jiro naftu waxay jacaylkeeda ay mudnaan kartaa dhigi kartaa jacaylkeedii waan siiyey markay spiritual ahaan oo xagga maaragtay spirituality ay ka ilaaliso waxyaalaha ka wasaqayn kara niyadda qalbiga wadnaha yani maskaxiyan qofka dhaawici kara iska ilaaliyo haddaan dib u soo noqdo macalin saciid adiguna jazakallahu khayran yani sida qofka inuu dhaan raaco yani waxaan loo dirsanin maaragtay monitor uu ku sameeyo naftiisa ilaawo haddaa taa ku darsado waxaa ka soo qaadaa qofka ibn aadanka walaalahana daawanaya adinka hadalka idin wada insha Allah anuguna gabdhaheena discussion ka sameyn doono qofka ibn aadanka waxaad arkaysaa dhagaha maxaa ku dhaca dhaawac maxaa soo gaara psychological waayo qofkan wuxuu aaminsan yahay inuu yani adduunka ugu fiicay aniga dad ma xanto dad arkaysaa ku leh aniga wallahi inta heblo waa ma xanto aniga laakiin dhagahoodii ayay u ogolaadeen dhagahii وميت كلي وقلاش يعني أنا عندما ما بعرف كان وليه هب كبر تاكتلي عندما من كل على هذا يربح على مرة يا قربه دن أفريقيا حتى أذوب قف أتجي لك السوشيال ميديا هساك لصعدها دت بدن ويسأخونين أو هذانا تاريخ بود إسهايا جرو marka qof kale taariikhdiisa ah waqtigaada ku dhumisida oo energy-gaaga aad geliso waxay kale xataa maxaa la dhahaa saameynaysa qofka dareenkiisa qof waxa arkaysa iska xanaaqsan emotionally wuxuu u xanaaqsan yahay haduu rabo nimanka oo dhanba because sheeko xuna looga sheegay waaba qofkaas waxa laga yaabaa qofku la noolaa xataa inuu effect gaarsiiyo uu dhaqan xun oo la dhaqmo asagoo ka fakarayo dhibkaas uu maqlay adiga xataa amuu kugu dhacaa marka naftaada ma jeclid waayo noloshaadii waxa ku dabaqday qof kale noloshiisa taas maxaa ka ilaad bacaan safiya ما شاء الله سعيدة كوريجين دونا سعيدة كورن أنا وأنا كسي دخاقين
qofkaas ibn aadanka dhagihiisii wasaqeeyay diiniyan maxaa yani ka halaabay adduunkii kolleyba aragnay ana aad maaragtay iska sii hadli doono diiniyan qofkaas muxuu consequence ayuu maraya diiniyan hadda maxay ahayd wuxuu ku mashquulsoomaa wuxuu ilaahay uga digay inuu maxay ahayd xanta iska ilaaliyo صح xanta inuu iska ilaaliyo صح ما شاء الله taasna waxaad dareemi karnaa dhib ma lahan waayo allah subxaana watacaala waxaa jiro fard waxyaalo maaragtay nalogu qur'aanka naloogu sheegay oo digniin weyna nalooga siiyey ilaa maaragtay allah subxaana watacaala uuna dhahay ka dheeraada xanta fajtanibu maaragtay xanta ka dheeraada laguma dhihin ha xamanin dadka like waxaa laga ka carab run away ka fogow why waxaa ku dhex jira maaragtay micno aad u qiimo badan dhanka psychological hadaa usoo noqdo insha allah qofka ibn aadanka dhagihiisa marka uu saqoobayo waayo dhagaheena dhulkay wuu galaa sax oo qashina wuu waxa ka sii daran wallahi oo ka xanuun badan qofka marka uu dhagaysto qof kale oo la xamanayo walaalkiis horta xanta magaceeda horta aan fasirno xanta lagu sheegaayo waxa waaye qof aad ka hadlaysid oo asagoo nin kula joogin weliba xumaanka sheegaysid exactly marka ka hadlaysidna waxaad uga hadlaysaa ill managed like yani sid wuxuu ku qaldanaa ayaad tilmaamaysaa sida hadday aad ka hadlaysa amina oo aad tiri wuxuu qofkan yani taariikhdiisa iyo wixiisii aad sii dabgashay subxaan allah haddaan usoo noqdo marka macan siciida aan sii dhammaystiri doono xagga oo diiniyan haddana aan psychological kusii dari doono waxa qofkaas iska wasaqeeyey dhegtiisii waxaa soo galayo energy qaldan oo wasaq wata energygaas wuxuu ku faafayaa qofkaas gudihiisii wuxuu bilaabayaa qofkaas inuu noloshiisii ka shaki wuxuu bilaabayaa inuu carab badan ay ku dareemo wuxuu bilaabayaa in maalinkiisii ay ka bedelanto maxaa u keenay marka qofkaas do you think maan siciid inuu naftiisa jecel yahay what do you think qofkaas wow okay maan siciid waa naga maqneeda umaleynayaa إن شاء الله سعيد مصطفى أنت أصلح كده هو معني سفيا go ahead waxaa jirtay 2 sano ka hor umaleena social media Facebook waxa la socon jiray dad maanta dhan sheegay wax xun le dhibaato ayaga ku dhacday dib loo geystay dhibaatooyinkaas ay ka sheekeynayaan xataa waxa dhihi karaa waa xan sababtoo ah wax xun maanta dhan markaa maqlaysid oo ama dad lagu dhagaya because qofkaas wuxuu eedeynay dad dhibaato asaga u geystay marka dadkaas uu wax ka sheega aad dhageysanay waxaan qaadi jiro qiiro aan la ii dirsanin taasoo ah xumaan taasoo ah naceeb taasoo ah in aan naftirkeyga aan arkay anoo dabeecadeyda iga xumaatay oo ilmahayga si adag ula hadlaayo odagayga si adag ula hadlaayo taasoo iiga imaatay dhageysigaas aan dhageysanayo waxaan la ii dirsanin aniga qof dhibaato loo geysto dadkii dhibka u geysta aan waxba kama qaban karo ilaahayga abuurtaa wax ka qaban karo ma fahante laakiin dhageysigaas aan dhageysanayay la socodkaas aan la socday ayaa wuxuu bedelay dabeecadahayga anigana negative emotional igeliye kadib markaa ogaaday sheekada meesha adaa ku lehe dhagaha maxaa qofkaas uu ka dareema dhawaaq ah sababtoo ah waxa ka guuxayo oo ku dul noolaanayo dadkii kale noloshoodii iyo wixii ay maraayeen asagii wuxuu bilaabayaa inuu bilaabo sida aan sheegtay pinpoint ku sameeyo noloshiisa wixii saameynta ku lahayd soo qofkaas haddaba naftiisa jacayl ma u leeyahay وماي qofkaas isma jecla ani maalinkaa go'aanka ka gaaray inaan dhageysto waxyaabaha noocaas ah dadka isku dhagan dadka isdagaalayo dadka wax ka sheegayo absolutely markaan joojiye ayay dabeecadeyda saxnaatay ayaan keenay inaan farxo because waxaa iska xiray daaqadii xumaanta because adduunka xun iyo sanba uu leeyahay social mediahana waa midi laba afla qeer iyo xumaanba way ku jirtaa marka adduunka dhanka xun haddaa isku furtid oo maanta dhan wax negative aad dhageysatay ama dhibaato dhacday ama xan aad dhageysato naftaada u ogolaatid waxaa ogaataa naftaada inaada jecel tusin waayo waxaa keenaysaa inay kusoo gasho qiiro taasoo adiga waxba kuu faa'iideynin adduun iyo aakhiraba That's right ما شاء الله مع سعيدة welcome back أدينا إن شاء الله وحن كهذا الناس سيدا واستخدموا في ابن آدم حنت نباتيسو dadkaas sidee xanta ku timaada su'aashayda hore anuu ku laaban doono maadaama aysan dadka isla joogin is yani ay ku leeyihiin ba ani wallahi ahaantii qof inaan is aragno sheekada yani waxay taagan tahay qof isma aragno isma urina hadhowdi kusoo xigto laakiin adduunka dhan rikoorkiisii waad ka buuxdaa sidee ku dhacdaa xagee dadkaas xanta kasoo dhegeystaan taas aniga su'aashayda ah why and where inta badan zamanka hadda la joogo social media u fududayso ma wala soo wacaa ama maxay ahayd marka telefonka u badan yahay ha telefonka hadii la isku soo waco lagu shaqeystaa guriga looga shaqeysta dumarka
subxaan allah ayadoo gurigeeda ka bixinaya marka dad badan maxay ahayd wax ka sheegaya qofta ka sheegi kartaa oo maxay ahayd haddayna nafteeda ay xakameyn isku sii dayso warkeeda heesaa dad badan warkooda because waxaa dhacayso laakiin ay dhegaysato haddii dhegaysato xataa innakum idin mithlahum waay waa ku jirtaa waa isku mid xataa waxaa dhacda hadeertaa social mediaha adigooba qof wicin oo war lagu keenin waxaaba dhegaysanayaba dad isku dheganaaba dhegaysanay xanta naftirkeeda waa ayad meesha taalo because adaana naftaada u ogolaana waayo wax walboo dhegaysada waa dooqaaga adaa joyska iska leh waxa meesha ku jiro cid muku dhihin ilaa qasab ku dhegayso laakiin adaa internetkaaga iyo waqtigaaga iyo teleefonkaagaba ka dhagaysanayo adaana naftaada u ogolaata dadkaas marka maadaama hadda maasha allah tabaaraka allah qofkii inuu lamid noqon karo khayr allah kusii macalsiida waayo dada waxay ku leeyihin aniga dadka maxanto baabuur ma u raaci ma safro guri kama baxo 4 mitira ku jiraa dad isma aragno telefoon kuma hadlo aamina waxaa kasoo dhawaajisa waxaa tiri social media la galaa mobilka la haystaa computerkii laptopkii ilmihii markii la kala seexiya loo fariisanaa dhagihiya marka waxaa lagu sameeyey waxa lagu furi waxa la yidhaahdo shaki jacaylkii qofka nafsadiisa dib u dhacaysaa waayo qofka markuu naftiisa jecel yahay waa inuu kala jeclaadaa dadka uu la janqaaday dadka uu dhageysanayo dadka uu maqlaayo dadka uu maaragtay heybada siinaayo dadka uu maaragtay uu follow u noqdo waayo qofka ibni aadanka ah dhagaha wallahi subxaan allah waa the most qofka cilmiga aan dhageysano oo aan ku dhaqano dhagaheena ayaa maqla kadib processkeedii bilaabma haddii dhanka kale loo fiiriyo oo physical xataa oo pain qofka ku noqon karo waayo allah subxaana watacaala markuu naga dig wuxuu kasoo qaada anagoo qofka walaalkaa meydkiisa cunaysid waa big deal qofka walaalkaa meydkiisa cunaysid laakiin meydkaas cunaysid waxay ka mid waa wasakh ka waran adiga qalbigaaga qad ku shubto wasaqaysay dhagahaagiyaa wasaqaysay laakiin dhar qurux badanaad xiranta magaaladaad maraysaa dan maalinkii dambe maxaa ku dhacaya qofka mental health mental illnesses shakigaas iyo negativekaas exactly so haddaba annagoo dib usoo noqonayno what can yani waa this haddii dib loo noqdo ka waran dadkeeni waddanka hore markii la jooga xanta ma badneed mise haddii ka badan tahay ma labadii waxay maxay leedihiin ani waxay ila tahay haddeertaan inay dhibka ka badan yahay dhibka inuu badnaadana waxaa keena dadkii way isku mashquuleen oo qof walba labadan mitira ku jirtid iyo ilmahan keliya noloshaada ma dabooli karto haddaadan naftaada adi mashquulin diinteenana waxayna dhahaysaa haddaadan naftaada ilaahay ku xirin oo caabudin shaydaana caabudaysaa waayo nafta haddaadan adi mashquulin ayadaa ku mashquulinaysa absolutely so waddankii dadkii dee dad iska nabadgelyo iskaga jiro ilmahooda iska korsanayo deris nabad qabo isku soo wareego deriska xalaasha laysdhaho layska sheekaysto maxaa la yiri lagu jiraa laakiin hadda opposite ay noqotay waxaa lagu jiraa challenge yaa naagteena kala ka fiican so inta challenge meesha laga rabay inay wacyi kordho inuu zamankan uu ka duunaado zamankii hore wacyi soo kordho wax barashada iyo macnaha wixii sax iyo qalad ay sii kala bartaan oo xanta markaas ay sii yaraataaba la rabayba opposite waa kugu raacsanahay waayo wallahi well said masha allah waayo waxaa isleenahay hadda u fiirsa iskuullada ilmaha yeerba waxaa kasii bata casharadooda sii bato maaragtay expectationka ama waxa laga filanayaa sii bata shaqadii oo aali ku heli jirtay ama si dhaqsaa bastiid ku heli jirtay hadda waa la adkeeyay sax waxaad ogaataa zamanka caqligeena koraaya laakiin waxaa hoos garaadkeena ayaa hoos u dhigaya waxaa koraaya cilmigii waana soo gelayaa laakiin garaadkii dadkii uu lahaa uu ku kala goosan lahaa soorta uu dhihi lahaa soortaan beriya cunaa soortaan xalaal waaye soortaan xaaraam waaye maaragtay noloshu saan ma ahan hebel wuu fiican yahay I have to respect laakiin waxaa ka qoyan xan hebel laakiin hadda waxay taagan tahay inuu qofkii asaga iswasaqeeyo isduleeyo because hebel inuusan ka caroon which is our next week hadli doonaa du ilaahay idmo siduu dadka qofka kale ku raadinaya laakiin hadda wiigan waxaan ku ekaan doonaa maxaa qofka dhagaha ka wasaqeeya isagoo labiskiisii qurxon maraaya ka qasnayn dhagihiisa sidee ku wasaqoobeen oo qofkin u leeyahay self love I love myself it doesn't mean anything at all markaad dhegaysanaysid mawjadan yartaad gacanta ku haysatid subxaan allah sufii waxaa u malaysaa horta soomaalideena yani wayna isweydiinaysa ashas last weekna waan soo qaadanay self lovekii macnihiisa
ayaa Soomaali ahaan kaga dhaadhacsanay naftaada jeclaaw wax kale la tahay naftaada jeclaaw naftaada qadari oo marka waxa kala jeclaataa waxyaabaha xun oo maxay ahaydee يعني كوسو جيدا متقانا إن وحيابا معناه المام حم إن لقوه تمام ليدد إياه كوسو جيدا لكن نفط هذا جعلاء عند قفا نفط هذا جعلين ما جرتو قالوا لها وارون نفط هذا وهجعشها لكن هذا محا ماشي حنكو جاي وارون محا كل جي ماشي حن محا تدك حنكو دحدقة ها ساسوي مركي waxaa laga yaabaa in dadka inay kaliya aaminsan yihiin aniga waa isjeclahay oo maxaa lahaa haddii la yidhaho buundadan ka boodo iska tuur iskama tuuraayo laakiin waxaa jira ficilo badan oo ka sii daran inaa buundadaas iska tuurto waayo maanta dhan markaa ilaahay waqtiguu ku siiye oo lagugula xisaabtamaayo aa maanta dhan ku weystigaraysa inaa naag facaa ah dhibaatadeed iyo nin facaa ah warkiisoo xun weliba oo dhinac xun ah negative aa raadisid aa waqti ku dhumisid adoo ajirkaasoo galaynin adoo xoolo kaasoo galaynin adoo ku cayilaynin adoo ku koraynin what's the benefit nothing waa khasaare caadi ah baktigii aadan cunin laakiin dhageysigiis aad dhageysatay boorkiisii dhagey ayuu kaa qiiq ku riday aan dhammaan weliba subxaanallah qiiqaas aan dhammaan oo weliba gurigaaga iyo familkaaga kaa dayacayo mathalan hadda markay dadku isu imaadaan oo kale ay wada sheekaystaan let's say subxaanallah hadda alxamdulillah sida hadda aan ku sugan oo kale ilaahay noo ziyaadiyo waayo qofku ma ahan in only koraa cilmigiisu waa inuu garaadkiisiina koraa qof waxaad arkaysaa adduunka ugu caqli badanahay kule laakiin liiqada uu ku jiro iyo waxyaalaha uu ka hadlaayo isma lahan iyo labiska uu labisan yahay qofka isma lahan sida hadda aamin ee ka dhawaajiso kale thank you so much baa qadab fiicanaad wallahi taabato aad tiri dadka ayaga iska samaystaba inuu naftooda maaragtay dhahaan aniga nafteedu waan jeclahay oo maaragtay saa ma sameeyo ama kana ogo waxaa jiro oo la dhaho self creation ego qofka asaga wixii samaysanayo waxay u noqonaysaa wax saxsan markay u noqoto qofka dhaadhicin karo isaga xataa markii dambe iska dhaadhicin karo waxa uu sameynaa sometimes laba qof u kala qaybsama laba sabab u noqonaa kii saxsanaya wuxuu leeyahay dhagahaaga wasaqaa ka buuxdee bax xukay qaado iska soo tirtir dhagaha markii buuxsamaan waa dhagoola noqonaysaa haddii kale wax ma maqlaysid laakiin waxaa kasii daran qaaca dhagaha kaa soo gala oo dhagahaada ku dhaca oo aad maqashid la seexatid laba nooc jiro kugu ridaa wuxuu kugu ridaa maaragtay spiritual diintaada maaragtay u daciifinaya labo iimaankaagi waayo taas waxaan number one ka ah labo wuxuu ku dara physical wuxuu ku siinaa pain wuxuu ku siinayaa hopeless waxa la yidhahdo depression waa hopeless lagu sheegayo wanada haddaa labadiina qof ka dhawaajiya makhlaya inaad dhahdeen ka waran inay dhahaan nimanko dhan waxan yihiin dumarko dhan waxan yihiin yacni dadko dhan aan la hadlin this and this and this all of that wasakhdii gudihii gashay qaddi ayaa ku weynaatay waa hadda maalan ka soo qaad haddaad cunto fridge-ka gelisid saxana aad maanta waxaad tiri okay ilmihii ma cunaayaan ama ma cuneyno bac baa ku xirtay meesha frozenka maada gelin waxaad gelisay meesha fridge-ka caadiga ku diintama 7 maalin maxaa ka dhasha cagaaraa ka dhasha way caaraysanaa hadhowdi fridge-ka qabow ahaaye boorkan xaguu ka imaaday ogow adigana pure ahayd hilibkaaga laakiin boorkaas naftigiisa intuu dhagahaada galo wadnahaagii wasaq ku ridaayo dhaawacaayo baarkib kaa dhaawacaayo gastrik kugu ridaayo calool xanuun kugu ridaayo waayo waa wax ilaahay allah subxaana watacaala xikmadda ugu weyn oo ku jirto ka dheeraada fajtanibu ka dheeraada so taas waa mid muhiim insha allah maxaa ku darsan lahaydeen anigoo aan soo gabagabeynayno oo aad ku waanin lahaydeen walaalaha weliba naftoodii isleh insha allah anagoo kusoo noqon doono macaan siciid horta ka waran self love-ka hadda maxaa isleedahay sidee dadku ugu fasiri kartaa si u fahmaan ugu sii baraarugaan self love waxa way qadarinta naftaada inaad qadarisid markaa qiimahaaga adiga dareentid dad kale kula dareemi karaan marka adiga naftaada kala jeclaatid dhibaatooyinka iyo meelaha xun iyo macnaha ficilada xun isla maxay ahaydey aad ka celisid naftaada dan naftaada waa qadaris waana jeceshahay loo haynin waxaa meel xun kaa ridaysa maasha allah waxaa soo xasuustay macalin saciida markay dhahday naftaada haddaa qadarisay dadka ku qadarinayaan waxaa jirta qiso yar aan rabaa inaa idina qaybsado qisadaas waxay ahayd iskuulaa dhiganaye macalimadda iskuulka joogta marka dabeecadu waxay lahayd qof markay la joogto oo haddaa u wacatid oo tiraada kaala ani caawi waxay ku dhahaysaa hebela ani iska kayle markaas maba la hadli kartidba si weli aan respect ahayd dadka ula hadashaa
so ani waa qaadan waay computer ee baraysaa computerka ani ma aqaan xataa ma furi kari sababta meesha galaaska u tagaan inaan barto wax so I was like what's going on macallimada marka anu u yeero may ha ila hadana hadalkii kor u qaad dadkii dhan oo wada fiirinayo iskuul ahaan dhiganay aniga arday ah hooyo ahay waqtigeyga waxa u soo horay ma aha inaan li soo liido ma fahantay so I was like galaaskan anu waa ka baxaya mana dhiganayo waxay dhahdeen maxaa u xanaaqday markaas aan ku yiri waay marka ku waco ku i caawi aadan i caawinin hatta isug waa war la garta mogtahay laakiin hebel ilaah iyo hadalla oo respect ku jira waxaan ku dhahay listen saa u hadlaysa ani kama bahelin galaaskan waa ka baxaya waxay igu dhahday waxay ahayd galaaska princess loogama baahan ardaya looga baahan yahay markaas waxaan ku dhahay listen wali waa finish ma aqoon ani ay english aan ku murmeena idageysan ku dhahay princess ma iyaan ku iri ardayaan ahay laakiin waxa ahaan ku iri qof weyn oo arday ah oo waarid ah xishmad darana uma baahniyaan ku iri ilmo yaro adii aad dhasho canaanana ismi iyaan ku dhahay qof weyn ay fiiriyaan ku dhahay horta aniga ayada way yaabtay macallimadii waxay gaartay heer princess iyo wacd erayga idahaysa ma tihid ee magac iiga dhigtay ilaa xataa odagayga iskuulka bilaabay ugu wici jirtay princess odageeda adaa ka samaystay I was like what wijiga ku qoranta princess ahay masha Allah arkaan kugula dhaqmaan ha naftaada haddaa ilaa ay qadarin heer gaarsiisi dadka dhan way ku qadarina kore kuu fiirinaya laakiin haddaa iska dhigto qof low ah oo ma fahanta lagu kor socday waa lagu kor soconayaa eedaysaa markaas no the same way ay dadka kale dhagahaaga u kiraysanayaan ayagoona lacag ka bixin ay hawaynayaan oo aad dhageysatay ku dhaqantay kadibna hadda hawsta ay kugu dhacay xanuunsatay waayo because dadaan ku ogeyn kaana warqabin ayaad boorkii ayaga ka soo baxay oo dadka kale ku jafaayeen ayaad dhagahaaga gelisay markaas waxaa rabtaa inaad guri iyo family dhaqdid inaad waxaad doonaysaa naftaadii jeclaatid so taas horta number 1 qofkaas naftiisa ma jecla qofka waxaa naftiisa jecel maasha Allah naftiisa qadariya lagiisa laga kiraysan oo expensive ka way u kala timeline ugu duwan yahay Facebook meeshuu galo YouTube meeshuu galo waxa uu dhageysanaa uu daawana uu noqdo wax asaga u fiican uu noqon qof ka carro laba ka kala dhigo dagaal ku jiro kaale meesha kasoo markii dambe war waxaan maxaan ay gal war wallahi markii dambe waa loo hiilinayaa hallo waxa leeyahay qofkaas inta laga xanta waa laga gardaraa qofkan kale ka gardaraa qofkii wuxuu noqonayaa maxaa dhigi jiray dameer dhaanra mamada dhameystirada gabdho mamada waxa waa dameer dhaan raacay camal qof oo xoolo camal ma fahante oo wuxuu arkista daba gala dhagiina aan waxba ka maqlin oo dhukuran subhanallah dhagi empty ah qalbigi especially ka dhinta oo iimaankiina uu ka daciifay waayo lagu dhigin xanta iska daa oo meel fariiso hadheero waa lagu yiri ha dhageysan dad iscaynay in dad isku dhagan exactly taada ku soo gabgabeynaa insha Allah xantu in ay laga dheeraado ay muhiim tahay so insha Allah walaalaha na dhageysanayo waxaan idin rajeynaynaa khayr soo booqda isbedel doon channel iyo maaragtay wanaag jecel waxa ka socda waxyaalo wanaagsan oo dhagahaagu aysan kaaga wasaqoobin waxaan ka hadalno email yihiin wax adiga priority ku ah oo naftaada bedelayo jilka cusub bedelayo jacaylka naftaada kordhinayo waayo aniga waxaan alxamdulillah nafteeni waan kala soo dadaalnay waa soo dhibtoon wala soo ka soo shaqeynay maanta waxaan rabnaa farxad iyo wanaag aan ku noolnahay in idinkuna heshaan oo naftiina asaa ku qadirsan ku jeclaataan so insha Allah topican uu sii socon doonaa next week and both of us maaragtay channel kan ina share dhahdaan why otherwise dadka wanaag leh waa inaad dhiirigelisi maaha inaad iska dhageysatid oo aad dhinac ku tuurtid waayo dadka xumaa dhageysta xumaa way isku raacaan oo isku dhiirigeliyaan marka haddii ka waran oo ajir ka heshid dadka wanaaga faafinayo aad channelkooda inta tagtid everywhere ku faafisid ajirkaaga wuxuu ku soconaa fi dunya wal aakhirah so waxaa idin leeyahay in meantime aad u maasantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh